Horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa caawa ilaa galabta waxaa dhici doona ciyaaro kala duwan. Horyaalka Englandna waxaa ballansan kooxo ay ka mid yihiin kooxda Brentford ee Shinnida ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Chelsea. Kooxda Chelsea oo sanadkan la garan la'yahay halka u socoto, isla markaasina dhaafila kaalinta tobnaad ee kala sarreynta horyaalka England ayaa waxaa sugaysa ciyaartan adag. Kooxda Everton ayaa iyaduna qaabili doonta kooxda West Ham oo aan kulamadeedii dambe soo bandhigin ciyaar qurux badan, isla markaasina guuldarrooyin daba joog ah ay la kulmeen. Newcastle United ayaa iyaduna la ballansan kooxda Wolves. Kulankan waa kulan adag. Labada kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaaro wanaagsan sanadkan, waxayna ku kala jiraan kaalinta sagaalaad iyo ta sideedaad ee horyaalka England. Kooxda Liverpool ee hogaaminaysa horyaalku waxay booqan doontaa guriga kooxda Nottingham Forest, waana garoon ka mid ah kuwa ugu adag ee lagu ciyaaro. Tan iyo intii kooxda Nottingham Forest ay bedeshay tababarihii hore, waxay soo bandhigtay ciyaar qurux badan. Laakiin kooxda Liverpool oo hogaaminaysa horyaalka kulubna uu og yahay inuu ka tagayo kooxda, inuu soo saaray ciyaaryahano cusub. Kulamadiisii u dambeeyay oo wacdaro dhigayay, waxaanu doonayaa inuu sanadkan horyaalka ku macasalaameeyo kooxda Reds. Kooxda Tottenham ayaa iyaduna soo dhaweyn doonta kooxda Crystal Palace. Ciyaarta u dambeysay horyaalka Premier League-na caawa waxay dhex mari doontaa kooxaha Luton iyo Aston Villa. Horyaalka Spain waxa ballansan kooxaha Valencia iyo Real Madrid. Serie A-da Talyaanigana waxa ballansan Torino iyo Fiorentina. Romana waxa soo dhaweynaysa kooxda Mons.